السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا وناكسن دمانتين داوديال مكسو دافع عالم كاتك جوجتان هالكن واتيفيق عالم جيستي في حرون سيدحي مقالة الشيقة داوديال وحلا سوق قاري هذا نسوق دوجنا وروح وقت هذا كان نقصو قاري ديجان كدلك دبديسة. أنا سيتو وصل مسح سيدنا هضوي بيدمه أنا جو أحمد إبراهيم أحمد قضى بدر قدر وحاكم ذا وزير حفيظ كورمرنتا خيرات كبيها دول ديجان كصومالية توبيا أهنا مضى حرون تدي حزب الديمقراطي شعب كصومالية توبيا مروة فرتون عبد المهدي أيها كور بحسب عقبت كي طبعا كي صنع إلى صور في كفاية سجى قرات كدنك بيها إديجان ك أياد يونسف أو إن مدة ودي دراسة ذكر الدوان أيها شخصي إن ودلك إن يتوبي يقولوا وحكوا كسو هي والله لحري له سود جدا جور كدقة ستيفن هاوكن أو هاي وعداقي دون ده ود بيسي في سجس كي حسابته أيها جريود يسقوا شريات ضباطن يلحسنوا داوديال قضبضها سوحة هاي القضبض يقدر كرنا يورك حتى نكسر وهذا قضبضان يكوك الماسترين فافايتو وهيك داوديال الصنوع ونكسر مركله حتى نوحد كسر واتان قضبضي أو فافاسن وزير حفيظ كورمرنتا خيرات كبيها دول ديجان كصومالية توبيا أهنا ماذا حرون تدي حزب الديمقراطي شعب كصومالية توبيا مروة فرتون عبد المهدي أيها كور بحسب عقبت كي طبعا كي سنة إلى صور رافي كفايديس كخيرات ك دنك بيها ديجان ك فباين توركنا واحد نص كوبية وريهن محمد أحمد عمر وزيرka xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna madaxa xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya Marwo Fartuun Cabdi Mahdi oo xafiiskeeda waraysi ku siinaysay warbaahinta deegaanka ayaa nooga warbixisay guulihii laga soo hooyay dhinaca biyaha 10kii sano ee ugu dambeysay iyo mashaariicaha biyaha ee waqti xadarkan xafiiska biyuhu gacanta ku hayo Marwo Fartuun ayaa ugu horeyn soo qaaday adeega biyagelinta ee laga hirgeliyay dhanka magaalooyinka markii la eego muddo 7 sano ama 8 sano ka hor biyuhu xagee u taagnaa maanta seexag u maraya markaan eegno waa arin farqi weyn ayaa u dhaxeeya adeega biyaha ee deegaankeena maanta ruux walbana oo deegaanka ku suganna uu og yahay markaati uu ka yahay waxaan dhihi karaa 8 sano ka hor dhanka biyaha deegaankeena waxba kama jirin dhammaan qabaleeyadeena iyo magaalooyinka iyo degmooyinka deegaankeena oo dhan biyo la'aan badan baa iyaa ka jira aad u badan dhanka magaalooyinka oo kale markaan eegno magaalada Jigjiga biyagelinteeda markaan soo qaadano waxaan haysanaa waxa weeye ilaa 35 ceel ayaa maanta biyo siinaya magaalada Jigjiga dhanka markii la eego waaji ceelasha biyaha ka soo siinaya dhankan tulli guuleed markii la eego magaalada dhexdeeda ceelasha ka dhisan ee hadda biyaha adeega siinaya markii la eego 35 ceel oo toos biyaha u bixinaya ayaa magaalada hadda maanta ka jira ugu yaraan ilaa 180 litir per second ayay ilbiriqsigii ay biyaha soo saarayaan magaalooyinka kale dhagax buur iyo qabri dahar iyo goday waa la mid iyaga laftigooda Marwo Fartuun oo hadalkeeda sii wadata ayaa ka hadashay natiijooyinkii laga gaaray dhinaca biyagelinta masaafada dheer oo adeeg biyo nadiif ah lagu gaarsiiyay tuulooyin iyo degmooyin tiro badan markaan eegno mashaariicaha biyagelinada multi village water supply system mashaariica la dhahaa ayaa jira multi village waxay ka dhigan tahay waxa weeye hal mashruuc oo biyagelin ah inay ka faa'iideystaan degmooyin badan hal mar inay ka wada faa'iideystaan tuulooyin inay hal mar ay ka wada faa'iideystaan oo hal mashruuc oo ilaa meeshu biyaha gaarsiin karo marka iyadoo laga duulayo kala sareynta dhulka design-ka loo sameeyo iyadoo laga duulayo marka in biyagelin loo sameeyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan marka waxaan soo qaadan karaa hadda mashruuca durwaale qabri bayax ilaa harta sheekha mashaariicahan gobolka city oo kale maadaama inta badan ay ban yihiin oo kale waa boosting system multi village fiican baa ayaa ka samaysan halka underground waterkoodu aad buu u fiican yahay ceelal badan oo biyo ah biyihii laga helay baa ayaa jira waxa kamid ah mashaariicaha multi village-ka mashruuca burqad ka baxaya waxa weeye waa laba dhinac toos wuxuu u siinayaa gunagado dhinacna burqad inuu halka ka bilaabo boosterka iyo toos wuxuu u geynayaa degmada dig
inta u dhaxaysa qabaleeyo badan baa ayaa u dhaxeeya oo ay biyuhu ka cabayaan dig markuu ka tago wuxuu tagayaa degmada Marsin tuulooyinka u dhaxeeyo dhan mashruucu adeegii biyuhu siinaya sidoo kale mashaariicaha waxa kamid mashruuca mugweyn ayaa kamid ah mugweyn ilaa iyo magaalada Fiiqeed mashruuca imanaya fiiq hadana ka tagaya ilaa iyo xamara gasangas mashruucaas isagoo multi village ka mashaariicaha multi village ka ayuu kamid yahay wuxuu kaga duwan yahay mashruuca mashaariicaha kale waxa weeye waa spring meel buurta hoosteeda ilaha biyaha ka soo baxaya weeye mashruucan sourciga waxa uu ah marka waa biyo aad u quality fiican weeyaan waa qorshaha noo yaala xafiis biyahan iyo xukuumad ahaan ruux walba oo deegaankeena ka tirsan meesha uu joogo sidii munaasab ah biyo lagu siin karo in lagu siiyo hadii la waayo in halka ceel hadii looga waayo in ceel biyaha looga waayo ama sourcigi kale wabiyadii ayna meeshu lahayn waxa qorshaha ahaan marka aan u qaadanayna maadaama mas'uuliyad naga saaran tahay markasta in laga jawaabo baahida biyaha meel kasta ka jirta in meeshii biyo leh looga soo qaado oo meesha aan maxay ahayd biyaha lahayn loo keeno kilomitirkeen doonto ha noqoto waxaa hubaal ah in meelo badan oo deegaanka ka mid ah sida dhulka ciidda oo kale ay daraasadan xaqiiqda ku qotamin ay sheegi jireen in aan haba yaraatay aan laga gaari karin wax biyo ah balse ay xukuumaddu guntiga u gaabsatay sidii looga soo saari lahaa biyo nadiif ah bulshaduna ay waqti xaadirkan ka faa'iideysanayaan dhanka ceelasha markaan eego ceelashu laba u kala qaybsamaan kow marka wabi laga jiidaynin ama biyaha roobka ayna ahayn waxa biyo gelinada la qabanayo meesha halbowlaha u ah waxa weeye waa daraasaadka ceelasha iyo qoditaankoodi waxaana wada ogsoonahay laga bilaabo xarshin awaare yoocaale daroor gaashaamo Marsin dhulkaas wuxuu ahaa dhulka had iyo jeer proposaalada hay'aduhu ayna ka bixi jirin biyo dhaamiska ay caanka ku ahaayeen laakiin hadda maanta in xarshin ay biyo leedahay oo ceel intii laga qodo ay biyo leedahay awaare intii ceel laga qodo inuu maanta biyo leeyahay daroor intii la daraasadeeyay ceel laga qoday maanta inay biyo leedahay gaashaamo sidoo kale Marsin sidoo kale maanta waxa weeye taariikh xukuumadda dhanka biyaha soo hoyatay weeyaan marwo fartuun ayaa ugu dambeyntii ka warantay mashaariicaha waaweyn ee dhanka biyaha ee waqti xaadirkan gacanta ku hayaan waxaana kamid ah biyogelinta masaafada dheer iyo dhul daaqsimeedka ee banka xaguuga ilaa iyo gaashaamo oo ay ka faa'iideysanayaan tuulooyinka iyo degmooyinka ceel baxay qaydar labiile kaam cumar caana madoobe gaashaamo dhagax yacade iyo cali jaamac waxaana mashruucan ku baxaysa miisaaniyad ka badan 216 milyan oo bir iyadoo ay ka faa'iideysanayaan dad gaaraya 78,500 oo ruux halka xoolaha ka faa'iideysanaya ay dhan yihiin 173,500 oo neef iyadoo mashruucan dhererkiisu uu dhan yahay 120 kilomitir tuubooyinka loo isticmaalayo mashruucan ayaa ah nooca HDB loo yaqaano iyadoo uu leeyahay 9 kayd biyood iyo 30 water point iyo waliba mashruuca biyogelinta masaafada dheer ee itishaale dhadhamane cobasha ilaa iyo fiiq oo laba fays ah iyadoo fayska koobaad oo itishaale ilaa cobasha ay ka faa'iideysanayaan tuulooyinka itishaale biiqa haloobiya dhadhamane dawaarato cali Itoobiya iyo cobasha miisaaniyada ku baxaysa ayaa ah miisaaniyad ka badan 156 milyan waxaana ka faa'iideysanaya bulshadan 19,151 qof iyo waliba xoolo dhan 350,000 oo neef mashruucan ayaa dhererkiisu yahay 150 kilomitir tuubooyinka loo isticmaalayana waxa ay yihiin HDPE iyadoo arinta uu mashruucani uu gaarka u leeyahayna ay tahay inuu dhammaantii uu yahay gravity ama uu ku soconayo kala sareynta dhulka markaan eegno sanadkan 2010 ama 2010 tirsiga Itoobiya mashaariicaha ugu waaweyn ee aan qabanayno waxa kamid ah mashruuca banka xaguuga ilaa iyo gaashaamo ayaa kamid ah marka mashruuca wuxuu ka baxayaa ceel baxay iyo ka bilaamay ilaa wuxuu tagayaa gaashaamo marka haddana ka sii baxayaa wuxuu ku dhamaanayaa ilaa iyo tuulooyinka qaydar labiiliyo iyo ku dhamaanaya marka mashruucan waxa weeye wuxuu marayaa banka xaguuga waxa weeye banka xaguuga waa meelihii ugu daraa xilligii abaarta meelihii ugu dhibka badnayd
markii la eego marka inaan hadda u bedelo meeshii abaarta ahayd meel xooluhu maanta shalay meeshii xooluhu ku baaba'een biyo la'aanta ugu baaba'een in maanta aynu u bedelo dhul wada biyo ah oo hadhowna noqdo dhul daaqsimeed noqdo ay xooluhu isugu yimaadaan inaan ka dhigno qorshe ahaan mashruucaas ayaan u qaadanay sidoo kale waxaa mashruuca bishaale dhadhamana cabasha ilaa fiiq isaguna waxa weeye waa multi village weeye mashruucan sida mashaariicii kale hadda aan ka soo sheekeynayay mashruucan wuxuu yahay waa laba phase weeyaan phase-ka ugu horeeya waxa weeye bisha idishaalu ka bixi ilaa iyo cabasha biyo gelintiisa phase-ka labaad wuxuu noqonayaa cabasha ilaa iyo magaalada fiiqeed ayuu noqon doonaa mashruucan sidoo kale xafiiska biyaha ayaa kalenti ka ah shirkadda design-ka daraasadii samaysay shirkadda dhismaha iibka adeega gaarka ahna waxay iyaga fulinayaan mashruucani isagu waxaa gaar u ah waa the whole u dhan yahay waa gravity weeyaan waa kala sareynta weeyaan markii ceelka laga idishaale uu ka soo baxaan biyuhu kaydka lagu shubo inta wixii ka dambeey wax pumping system ah oo mashruucan loo sameeyay ma jiro kaliya pumping systemkiisu waa ceelasha biyaha ka soo baxaya bamka ka soo tuuraya mooyaan wax bam uu leeyahay ma jirto mashruucan suu u dhan yahay degmada Galaadii ayaa qablaha Rajooska hirgeliyay 40 hektar ee ugu horeeyay 120 hektar ee dhanka hirgelinta qorshaha wax soo saarka beeraha loo siiyay faafahinta warkan waxay noo soo diray wariyaheena Alab inagu soo warama gobolka Doolo wariye Axmed Nuur Cabduuli si looga guuleysto xayndaabka saboolnimada iyo fikirada mashaqaysanimada ayay xukuumadda deegaanku qorshe u qaadatay in la tabcado beeraha oo lagu foorarsado dhulka si ay bulshada deegaanku u noqoto bulsho dhaqaalaheedu dhexdhexaad yahay haddaba maamulka degmada Galaadii ee gobolka Doolo ayaa beer ka fuliyay qabalaha Rijoos ee degmadaasi iyo guryihii loogu talagalay dib u dejinta oo gabagaba maraya waxaana ka warbixiyay faa'iidada wax soo saarka beeraha gudoomiyaha degmada Galaadii mudane Cawaale Axmed Mursal iyo madaxafiiseedka horumarinta beeraha iyo kheyraadka dabiiciga ah ee degmada Galaadii mudane Maxamed Cali Maxamed waxa saaka sharaf iyo farxad inaanu ka midho dhalanay qorshaheennii baabaco ku dhagiisuna ay isku filaanshaheena waan soo ceshan karaa ee degmada Galaadii waxaad arkaysaan waxa weeyaan beertii baabaco ee degmada Galaadii gaar ahaan ceelka Rijooska taasoo guud ahaan qorshaha iyaga sanadka 2010 uu ahaa dejinta 60 qoys oo ugu talagalay 120 hektar hadda beertan aan dhex taaganahay waa 20 hektar weeye 20 hektar weeye ceelkan waxaan ugu qorshaysnaa 40 hektar inaanu ka diyaarino 20kii kale halkan way wada arkaysan iyadan cagafti bay ku jirto oo la shineeynaya waxa kale oo jiro laba ceel oo duuban iyo qalloocana oo iyagana sidan oo kala min 40 hektar shaqaduna ay ka socoto yaa jiro marka waxa aad aan ugu faraxsanahay inaanu ka midho dhalanay qorshihii baabicee 2010 waxa kale oo waraysi la yeelanay hogaanka nabadgeliyada degmada Galaadii mudane Cabdi Kaafi Cabdi Yuusuf iyo madaxafiiseedka biyaha degmadaasi Galaadii mudane Bashiir Cabdi Qafaar hadaladoodina waxa ka mid ah sida tan saddex goobood way waa halkan oo Rijoos ah oo magaalada Galaadii marka labaad waa duuban oo hadana isla iyadana Galaadii iyo qaloocan saddexda goobood waa sida marka nidaamka xafiiska biyaha u yaal dhammaan goobaha ay shaqooyin ka socdo hadii ay beer tahay in la biyo geliyo oo dhammaan in dooni waxa jirta inaan biyo gelino hadii ay xoolaha tahay iyana saayaslamidina hadii guryaha tahay inaan biyo gelino tusaale ahaan halka Rijoos waxay inoo jira ceelku 370 mitir buu inoo jira waxaan hadana go'day ku biyo gelinay nidaamkii loogu talagalay baan u biyo gelinay geesta kale bulshada ku dhaqan qabalaha Rijoos ayaa bogaadiyay habkan casriyaysan ee wax soo saarka dhulka ballan qaadayna wixii hadda ka dambeeyay inay u jeedsan hayaan soo saarka beeraha dawladii yaa caws noo beedhay waxay noo beedhay guryo waxay noo sameeyeen meel hagara ah oo xooluhu noogu dhaqmaan iyo cawskii intii kaba waxa weeyo si aan ugu dayano dawladana tustay oo noo soo keentay waa mahadinaynaa ilaahay baa mahad leh isku soo wada duuduubo xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dadaal dheeraha ugu jirta sida ay bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya u noqon lahayd bulsho xoolo dhaqata beeraley ah Axmed Nuur Cabduuli telefishinka caalamiga Estv
qabalaha Rijos ee degmada Galaadi ee gobolka Doolo. waxaa heer gabagaba ku dhow intoodii badneed la dhameystiray goobihii iyo gurihii loogu talagalay dadka iyo dunida ka faa'iideysanaya qorshaha baabaca ee dibujinta lagu sameeyo degmada Mustaxiil sida faahfaahinta warkan inagu soo diray guriga Farxbadi si looga gudbo saboolnimada loona gaadho isku filaansho iyo wax qabsi kor loogu qaado nolosha bulshada ayaa waxay xukuumadda deegaanku sanad kasta dejisaa istaraatiijiyad cad oo ficil wadata oo arrintaasi laga gudbayo haddaba qorshahan sanadka 2010 ayaa ah barnaamij loogu magac daray biyo baad beer iyo caafimaad kaasoo dhammaan degmooyinka deegaanka xilligan si rasmi ah ugu hawlan yihiin hirgelintiisa barnaamijkan oo ka kooban qaybo badan oo kala ah dhismo guryo qoysas loo dhisayo oo leh xiriyo loogu talagalay in lagu quudiyo xoolaha dararkii biyaha goobihii calafka iyo beerihii calafka xoolaha iyo dadka lagu beeri lahaa ayaa markuu hirgalo u muuqda mid door ka qaata jebinta cadowga saboolnimada bulshadana u furaya qaaciido midho dhal ah oo ay u maraan isbedel nololeed degmada Mustaxiil ee gobolka Shabeelle oo aan booqanay goobaha laga hirgelinayo barnaamijkan oo meel fiican maraya ayaa waxa faahfaahin warbaahinta ka siiyay qaar ka mid ah maamulka degmada Mustaxiil ee gacanta ku haya fulinta barnaamijkan halka uu marayo iyo ahmiyadda uu yeelan doono bulshada marka uu dhamaado degmada Mustaxiil ahaan qorshaha u yaala ee magaranayay sidii magaranayay degmada Mustaxiil ama shacabkeeda ama qorshaha guud ee la qaatay sidii saboolnimada laga bixin lahaa shacabka deegaanka ayaa waxa la sameeyay 2010 wax la yiraahdo magaranayay dejino sida baabacada qorshahan Mustaxiil 25 qoys ayaa qorshahan u qaadanay meel fiican maraysa dhawaan waxaan doonayaa dulaa yiraahdo inaan xulitaanka iyo qoysaska haynan ku wareejino dulaa yiraahdo halkan aad maanta aad u jeedaan goobtan ku sugannahay waa dib u dejintii maadartay baabacadii lagu talagalay shacabka maadartay reer Mustaxiil in lagu dejiyo tuuladan aad arkaysaan waa tuulo maadartay in la magaaleeyo lagu talagalay ee maadartay xukuumadda ugu talagashay in saboolnimada laga baxo in maadartay 25 qoys aanu dejino biyahoogii iyo xiriyahoogii iyo quuditaankoogii intuba way wada dhameystiran yihiin hadda saad arkaysaan dhawaan insha Allah taala inaan maadartay qoysaskii aanu ku wareejino oo dejino maadartay ayaan ku tala jirnaa kumadeena waxa ay qaatay in sanadkan 2010 ah la dejiyo dib dejin loo sameeyo dadka xoolo dhaqata beeraley ah marka degmadana qorshe ahaan wixii ku soo hagaagay waxay ahayd 25 qoys in la dejiyo 25 qoys ee la dejiyo waxa loogu tala galay in loo beero 50 hektar oo dhul loo beero 50 ka hektar oo kala ah in 25 calafka laga dhigo 25 laga dhigo cuntadii ama dadka cun lahayn sida galeyda yaryar oo kale dhulkana dhex taaganay waa 50 hektar waxa la diyaariyay hadda oo beeran 25 hektar baa beeran dhamaanteed horta 50 hektar waan diyaarinay qaar waa ka wada aragtaan hadda way macala sabuulki soo bixinayso dhalayso inta kalena hadda waxa ku socda abuurkii iyo waxa ku socda biyihii waraabka ku socda taariikhdan ay fulinayaan maamulka degmada Mustaxiil ayaa lagu gabagabeyn doonaa muddo maalmo ah iyadoo oo marka la dhameeyana la gudagali doono dejinta qoysaskii danyarta ah ee loogu talagalay kuwaasoo loo iibin doono xoolihii waxaana xusid badan oo meesha ka maqnayn in tuuladan laga hirgelin doono adeegyadii aasaasiga ah ee caafimaadkii biyihii iyo waxbarashadii وهاك داود يلا هلك وركاسي توس كذا كي ما نيان واتيفيق عالمي استيفي حرن سدح مقالة الشجع داود يلا حتى نجلعنا ورك لين قصو قارد دلك دبديسا هيا يونسف ولي مدة ودي دراسات كل الدوان أي شكتي إنه دلك إن إثيوبيا يقولوا وحكوا كسو ولا الحريدة أو صديقة جورك دقدقة إنشار محمود أي نوسو تشيدني يا ففاينت ورك hay-adda UNICEF in muddo ay wada daraasaadyo kala duwan oo lagu ogaanayo dhibaatooyinka kala duwan ee soo food saara gabdhaha da'da yar ee guursada iyagoo oon gaadhin waqtigii guurka ayaa sheegay in dalka Itoobiya uu aad ugu dadaalayo sidii hoos loogu dhigi lahaa guurka degdega ah isla markaana ay haata xaaladdu meel fiican marayso sanadkii 2008 ee taariikheedka reer Yurub wixii ka horreeyay deegaanada dalkeena Itoobiya qaar kamid ah waxa ka jiray marxalado kala duwan oo qalafsan oo la xiriira guurka degdega ah maxaa yeelay maalin kasta 5 kamid ah gabdhaha da'da yar ee ayana da'doodu ayna gaadhin 18 sano ayaa geli jiray xaaladaha guurka degdega ah laakiin dadaal aan kala gool ahayn markii lagu sameeyay awgeed waxa lagu guuleystay in wax laga qabto xaaladii noocaas oo kala ahayd isla markaana hoos loo dhigay cadadkii tirada ee guurka degdega ah waxaana arrintaasi ka hadashay Karin oo kamid ah mas'uuliyiinta UNICEF waxayna sheegtay in 10 sano ee ugu dambeeyay dalka Itoobiya 30% hoos loo dhigay guurka degdega ah ee waqtiyadii hore ka dhici jiray isla markaana muuqata in dalku wado dhaqdhaqaaqyo la xiriira guurka degdega ah
Ethiopia, I think, is the country with the only qorshaha dalkeena Itoobiya ee ku aadan 2020 ilaa 2025 tirsi taariikheedka reer Yurub waxa uu muujinayaa in gacan bir ah lagu qaban doono dhammaanba hawlaha la xiriira guurka degdega ah iyo wixii la mid ah ee ka jira dalka Itoobiya isla markaana fulinta hawshaasi ay ahayd mid laga qayb qaadanayo waxa kale oo qorshahaas hoos u dhigaya qarashka ku baxa fulinta hawshaasi iyo waliba badbaadinta gabdhihii yaryar ee iyaga oo gaarin da'da guurka loo dhisi jiray haddaba warbixintan ay soo saartay hay'adda UNICEF ayaa sidoo kale tilmaamaysa in ay sanad kasta 12 milyan oo gabdho da'yari galaan xaaladda la xiriirta guurka degdega ah isla markaana dhibaato soo food saarta gabdhahaas wax ka qabashada hawshaasina waxa 10kii sano ku baxda lacag dhan 25 milyan oo dollar waxaan laga maarmaanaa in si wada jir ah wax looga qabto arrintaas isla markaana culiba awdiinka iyo wax garadkuba ay ka qayb qaataan dabargoynta arrintaasi Stephen Hawking oo hayr wacdaagii ay dunida ugu dambeysay fiisigiska iyo xisaabta ayaa guriyada isagoo jira 76 sano waxay noo soo jeedinaya faafaynta warkani Maxamed Xariir waxbarashada ayaa waxaa lagu tilmaamaa inay tahay lafdhabarta horumarka aadamaha waxaa kale oo la sheegay inay waxbarashadu kaalin mug leh ka qaadato taabagelinta horumarka dhaqan-dhaqaale ee wadamada waxaana maragbadoon ah inay cid kastaaba waxbaran karto oo ay natiijada waxbarashadu ku xidhan tahay hadba sida uu shakhsigu u dadaalo iyo weliba sida uu u helo fursad waxbarasho haddaba Stephen Hancock oo ahaa shakhsi naafo ah isla markaana ahaa shakhsi ay dunidu fiisigiska iyo xisaabta uga dambayso qarnigii aynu soo dhaafnay iyo kan aynu hadda ku jirnaba ayaa geeriyooday isagoo oo jiray 76 sano Stephen Hancock waxa uu dhashay 8 bishii Janaayo 1942 wuxuuna ku dhashay waddanka Ingiriiska wuxuuna waxbarashadiisii dugsiga hoose ku soo qaatay St Albania halkaas oo ahayd meel ay gabdhuhu wax ku bartaan waxaana la sheegaa inuuna Stephen waqtigaas ahayn ilmo carruurta ka dhex muuqda laakiin waxa uu jeclaa maadada xisaabta aabihiina waxa uu ku hamiyi jiray inuu wiilkiisu noqdo dhakhtar kadib markii Stephen dhamaystay waxbarashadiisii waxa uu galay jaamacadda Oxford wuxuuna digrigiisii koobaad ku qaatay fiisigiska intaas kadibna waxa uu waxbarashadiisii masterka ku qaatay jaamacadda Cambridge sanadku markuu ahaa 1962 wuxuuna bartay cilmiga la xiriira qaab dhismeedka dunida ee lagu magacaabo cosmology waxoogaa yar uun kadibna waxa uu bilaabay waxbarashadiisii PhD-ga markuu muddo gaaban waday waxbarashada PhD-ga ee ay da'diisuna marayso 21 jir ayaa waxaa si lama filaan ah ugu soo booday xanuun dhammaanba jirkiisa saameeyey oo weliba hadalkii iyo dhaqdhaqaaqiina ka xanibay waxaana waalidiintiisa loo sheegay inuuna dib dambe u noolaan doonin oo uu 2 sano kadib dhimanayo laakiin sida ay dhakhaatiirtu yidhaahdeen ma una noqon oo xaaladiisu waxa ay noqotay sidii Ilaahay ugu talagalay wuxuuna dib u sii noolaaday in ka badan 50 sano laakiin dhibaatada jirta ayaa waxa ahayd xanuunka ku dhacay oo la maareyn waayay si kastaba ha ahaatee Stephen oo aan yaraantiisii xariif ahaan jirin isla markaana markuu xanuunka jirka qallajiya ku dhacay ay dhakhtaradu ku tilmaameen in uuna 2 sano ka badan noolaan doonin ayaa noqday shakhsi uu Ilaahay maskax iyo cilmi ku manaystay oo ay dunida oo dhammi uga dambayso cilmiga fiisigiska iyo maatiska wuxuuna ahaa shakhsi qarnigii dhammaaday iyo kan aynu ku hadda ku jirnaba hoggaanka u hayay guud ahaanba waxyaabaha ku taxalluqa fiisigiska maatiska iyo weliba cilmiga la xidhiidha qaab dhismeedka dunida ee lagu magacaabo cosmology oo ay dadka dunida ku nooli daba socdaan waxa uu ku socon jiray gaadhi curyaan ah waxaana gaadhi curyaankaas loogu rakibay qalab uu wax ku qoro oo kombiyuutarka ka mid yahay marka uu hadlayana qalabkaasi ayuu wax ku qori jiray maadaama uuna afka ka hadli karin wax kasta uu u baahan yahayna waxaa laga akhrisan jiray qalabka hortiisa yaala intaas kadib waxa uu Mr Stephen dib ugu laabtay jaamacaddii uu dhigan jiray gabagabadiina waxa uu isla jaamacadda Cambridge ka qaatay shahaadadii professornimada kadibna waxa uu sameeyay daraasaadyo badan oo ay dunidu gacan ka taagtay waxaa kale oo ka mid ah waxyaabaha aadka loogu xasuusto Mr Stephen buugga lagu magacaabo A Brief History of Time oo ka kooban 256 bog isla markaana uu daabacay sanadkii 1988 taariikhda reer Yurub buuggaas oo lagu tilmaamay inuuna wax u dhigmaa jirin waxa uuna gaaray buuggaasi heer laga koobiyeeyo in ka badan 25 milyan oo buug waxaana lagu turjumay buuggaasi in ka badan 40 luuqadood oo ah luuqadaha dunida ugu horeeya geesta kale waxa uu ahaa Mr Stephen shakhsi mutaystay abaalmarino kala duwan oo tiro ahaan kor u dhaafaya 20 waxaana ka mid ahaa abaalmarinaas kuwa ay dad tiro yar ka heleen dunida oo dhan intii uu heerkaas gaadhayeyna waxa uu muddo 50 sano ah ka badan ku socday gaadhi curyaan
haddana daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha ee warka waxaa garoonka kubadda cagta ee magaalada Guday ka furmay tartan koob oo loogu magac daray isku filnaanshahayna waan soo ceshanaynaa oo ay ku tartamayaan shaqaalaha dowladda xafiisyada wakaaladaha kuliyadaha iyo isbitaalka Guday ee maamulka magaalada Guday sidoo kale waxaa degmada Hargeysa ee xarunta gobolka Abriil lagu soo gabagabeeyay tartan loo qabto xaafadaha degmadaasi oo loogu magac daray Babaca Cup xubintii ciyaaraha oo dhameystiran waxa ay noo soo jeedinaya wariyahina dhanka ciyaaraha Maxamed Aqbaan garoonka kubadda cagta ee magaalada Guday waxaa si rasmi ah uga furmay tartanka kubadda cagta ee lagu magac daray isku filnaanshahayna waan soo ceshan karnaa isla markaana ay ku loolamayaan xafiisyada kala duwan wakaaladaha labada kuliyadood iyo Guday Hospital furitaanka ciyaartana waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan iyo waliba ciyaartooyda iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaan wareysi la yeelanay madaxa xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha ee maamulka magaalada Guday Maxamed Maxamuud isagoo noo sheegay ahmiyadda tartankan maanta waxaan soo nimid inaan furo tartanka ciyaartooyga wakaaladaha xafiisyada magaalada Guday oo ka qayb galeen hadda ay xaadir yihiin labada kooxood ee hadda maanta aan ku bilaabayno waxa weeyaan xafiiska adeeg bixinta iyo isbitaalka weyn ee Guday marka waxay isku jiraan 10 kooxood baa tartanka ka qayb galaysa oo ka kooban yahay wakaaladaha iyo xafiisyada waxa iyo labada kuliyadood isbitaalka iyo maxaan ku raday ay ku jiraan bankiga commercial bankiga tartankan waxaan ugu tala galay ama aan halku dhig uga dhignay isku filnaanshahayna waan soo ceshan karnaa waxa weeyaan shaqaalaha dawladdu si ay uga jidhkooda iyo maskaxdoodaba u dhisaan waxa weeyaan inay ciyaaraha isboortiga ka qayb galaan marka inaan ballaadhino oo ciyaarihii mataqaanaa dhalinyarada qabalayada magaalada iyo maxaan ku raadayay dugsiyada inaan shaqaalahana aan ka qayb galino tartanada noocana aan joogtayna ayaan mataqaanaa noo qorshaysan tartankan lagu magac daray isku filnaanshahayna waan soo ceshan karnaa ayaa waxaa ku loolamaya 10 koox isla markaana loo qaybiyay 2 group waxaana loo qabtay shaqaalaha dawladda waxayna ciyaari doonaan maalmaha fasaxa ee Sabtida iyo Axadda sidoo kale waxaa degmada Hargeysa gobolka Afdheer lagu soo gabagabeeyay tartan lagu magac daray Babaca Cup isla markaana ay ku loolamayaan 6 xaafadood ee degmada Hargeysa ee gobolka Afdheer ciyaarta kama dambaysteena waxaa isku soo haray xaafadda Gaashaan iyo xaafadda Ataag waxaana guul 3 ku raacday xaafadda Gaashaan waana kan madaxa xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha degmada Hargeysa Cumar Sheekh Ibraahin oo wareysi la yeelanay bismillaahir rahmaanir rahiim halkan maanta waxaan ku soo gabagabeynay qoobkii Baabaco aan ugu magac darnay oo aan soo socday oo kooxaha magaalada Hargeysa ay ka kooban tahay ay ku herdamayeen oo maanta labadii kooxood ee u dambeysay kooxda Gaashaan iyo Ataag ay halkan ku dheelayeen finalkii kama dambeystii ayna ku guuleysatay kooxda Gaashaan ayaan rabnaa halkan inaan guddoonsiino kooxda Gaashaan anagoo mustaqbalkana rajaynayna tartanadan oo kale santarada inaan u sii dhaadhicino oo dhowr goobood iskugu geyno galabtana ma aragtay waxaan ku wareejinaynaa kooxda Gaashaan oo ku guuleysatay koobkii Baabaco waxa ay kuna daraankooda farxad la wadaagna qaar ka mid ah ciyaartooyda ku guuleystay koobka Babaca Cup waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo kabtanka Estv Gaashaan inaan koobkii muddo dheer noo soo socday Babaca Cup halkan ku guuleyso anigoo farxadda maanta mid aan u dhigo ma garanayo waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo kabtanka Estv Gaashaan كوح دير خير حس شعبدي إنا كوح كوب كان لقاضو الحمد لله رب العالمين إلهي ما أنت كوب كنوجلس يا مهلة أنا يارتي كم إذا كوح Gaashaan أو كوجلس كوبكي فرحة دانا مد أن لكوبي كرم معها مقرنا ساي وليو دمنا ميلو كوح Gaashaan وكوحها دقمة هرجلة كم إذا كترسن كونوا جلس هريال كالسعودي اللي إحنا كوح الله رجع درانك يبدأ ما أنت مقرنا ساي مد لكوبي كرم معها ويا كوح Gaashaan أي كوب كرادي tartanada noocan loo qabto dhalinyarada ayaa loo ogon leeyahay isdhexgalka dhalinyarada kala faa'iideysiga khibradda dhanka ciyaaraha manahan markii ugu horeysay loo qabto tartan noocan ah waa tartan sanadla Number 1 and nothing less. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. gudahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa war wixii waqti hadalka naga soo gaara deegaanka dalka iyo dalka dibadiisa
waxaana si toos idinla socodsiinaya anigoo ah Axmed Axmed aniga asxaabta kale ee qayb qaata timinta waa ka dhamaanteen isku duban inta aan kulmada xilli timinteena dambe qoreed waxaan isku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh